بسم الله الحمد لله رب العالمين annaga oo culimada reer Jubbaland joognana magaalada Kismaayo waxaan rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo inaan ka hadalno qadiyada bariyahan soo socotay ee ku saabsanayd i'tiraafka ama aqoonsiga Yuhuudda ay aqoonsatay arlada Soomaaliya qayb ka mid ah sida gobolada waqooyi insha Allah taala intii aanan war kale aan galin waxaan cadeynaynaa qadiyadaasi inay tahay qadiyad lama taabtaan ah dadka muslimiinta si guudna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu u yiri tafarruqana la nahiyay oo la reebay ijtimaaca iyo midnimadana la xoojiyay siiba dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed oo dad isku diin ah isku jinsi ah isla dhashay wiil abtigi wiil adeerkii ah in ayna maaragtay maanta qaybin cadow uu qaybiyo ayna wax u qabanaynin adduunku maanta asaga midoobahaya haddana dadkii yarka ah ee Soomaalida ahaa oo mar hore la qaybiyay intii soo hadhay maanta in la qaybiyo dadka aqliga leh iyo culimada iyo dadka maaragtay waxgaradka ah ee maanta ma soo dhaweynayaan marka arintaas ayaan maaragtay rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo inaan wixii nagaga aadan inaan ka soo jeedino insha Allah taala marka ustaad Guure ayaa akhrinaya bayaanka ay culimadu soo saartay biin Ilaahay taala sallallahu alayhi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد بيان رسمي وتاريخ الرسالة صاري أي تهي لبيه طبعاً بشهر رجب سنة كن أفر بقول أفرتين تدوّر تاريخ الهجرة وكبيعاً كودا بشهر كواد سنة لبكون لحلواتن تاريخ الميلادي ولماذا مقالة كسمايو عاصمتكم الجار جبلان يجو كدولية waajibka diineed ee ka saaran cadeynta xaqa iyo mideynta ummadda Soomaaliyeed waxay soo saareen bayaanka soo socda midnimada dhuleed iyo walaalnimada islaamiga ah ee dadka Soomaaliyeed ay wadaagaan waxay culimadu adkeynayaan midnimada dhuleed ee dalka Soomaaliya oo ku dhisan walaalnimada diineed inay tahay gundhig sal weyn ku fadhiya oo diineed oo laga maarmaan ku ah شريعة الإسلام كدحديدة إلهي سبحانه وتعالى حير إساء كهالله مسلمين إني وذكران يعني كالتقين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرقي إلهي وذقبصة إذنكو وذكره هانا كالتقيننا نبينا صلى الله عليه وسلم حير المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن كمؤمن كالوحوئي لسماء وكلاء لسماء وقاركي قارك كلاء وعدكيني laba culimada Soomaaliyeed iyo halku dhigooda hawleed iyo kan dacwadeed waxay culimadu adkeynayaan halku dhigoodii ahaa qabsashada kitaabka iyo sunnada oo fahamkii salafka uu yahay saldhig iyo in dadka loogu baaqo xaqa si murti iyo waanin ku salaysan iyo ka shaqeynta mideynta ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta guud ahaan adkeynta iskaashiga dadkeena oo ay wanaaga isku kaashadaan ka hortagida kala taga isnaca iyo fidnooyinka taasina waxay ka dhex muuqataa dhammaan hawlaha culimadu ay ka hayaan guud ahaan dalka iyo dibadda meelaha ay Soomaalidu kaga nooshahay saddex xaaraanimadka dagaalada beelaysan iyo dirirta sokeeye ee geeyiga Soomaaliyeed ka aloolsan oo soo noqnoqonaysa iyo asbaabta keenaysa oo laga hortago waxay culimadu rumaysan yihiin ummadda Soomaaliyeedna u cadeynayaan inay dirirta sokeeye ee dadka Soomaaliyeed ragaadisay ay xaraam tahay diinteenuna inoogu diiday si cad dadka ku dhimanayaana ay dhimanayaan dhimasho jaahili ah sida nabigeenu sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri man kharaja min at-taa'a ruuxi daacada ka baxa oo faaraqa al-jamaa'a muslimiinta wada jirkoodana faaruqa oo famaata geeriyooda oo dhinta maata miitatan jaahiliya wuxuu geeriyooday hab dhimashadii jaahiliyada oo kale ومن قاتل تحت راية عمية روحك هوس دغالمه بنديرد اما علن اندلي اما علن اندلاana يغضب لعصبيه خير اما بيل درteedu carooda او يدعو الى عصبيه اما عصبيadaas iyo dadka ugu yeeraya iyo qabyaalada او ينصر عصبيه اما u hiilinaya u gargaaraya عصبيada oo faqutila la dilo faqitla jaahiliya habdilidi jaahiliyadu isdil jireen ayuun baa la dilay afar cadeynta xaqiiqada waxa loogu yeeray ibraahimiyada iyo xukunkeedu
waxay culimadu u cadeynayaan ummadda Soomaaliyeed in ibraahimiyada la sheegay ee lagu lamaaniyay aqoonsiga ay yuhuuddu tiri waan ku aqoonsanay qayb kamid ah Soomaaliya dhulkeeda in looga jeedo mideynta diimaha oo iyadoo la og yahay in diinteena islaamku tahay tan nasakhday diimihii hore oo dhan kaamilna tahay ugu filan tahay dadka baahidooda dhan tan adduunyo iyo tan aakhiraba ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan ruuxa islaamka waxaan ahayn diin ahaan u doonta falan yuqbala minhu laga aqbali maayo laga yeeli maayo wa huwa fil aakhirati min al-khasiriin aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray ee ruuxa islaamka ka bayra ee diin kale raadsada ibraahimiyadaas cidii qaadata marka xukunkeeda waxay noqonaysaa shariicadii nasaqday ee diimihii hore inuu diiday kuna kufriyo diimihii hore maxaa yeelay diinteena waa kitaabkeena wuxuu musaddiq u yahay kutubtii hore ilaahay soo dejiyay waana muhaymin wada koobahayay nasakhayna shan halista muuqaalada muujinaya jacaylka ama jeclaanta gaalada oo ah cadowgii alle waxay culimadu uga digayaan ummadda Soomaaliyeed halista diineed iyo tan dhaqameed ee ay leeyihiin falalka qaarkood sida ku sujuudida calanka gumaystaha yahuudiga ah oo ah nacabka muslimiinta guud ahaan dhunkashada calankooda huwashadiisa iyo in geyga Soomaaliyeed lagu dhex muujiyo kalgacayl loo muujinayo yahuudda cadowga ah arintaasi waxay halis gelinaysaa islaamnimada gundhigeeda iyo salka ay ku fadhido oo ah xiriirinta iyo jeclaanta mu'miniinta iyo ku gacan sayridda gaalada oo ah mas'alada la yiraahdo mas'alatul walaa wal baraa yaa xigto iyo gacal inoo ah yaa nacab iyo inoo ah on ku gacan sayrina